xildhibaanka golaha deegaanka ee reer Oogo anoo ku hadlaya waxaan u sheegayaa gudoomiyaha koowaad ee xisbiga kulmiye Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed gudoomiyaha labaad Sheekh Cabdicasiis Samaale gudoomiyaha saddexaad wasiirka ganacsiga Saajin gudoomiyaha afraad Koore iyo xoghayaha xisbiga in aad naga haysaan beeshii Yaasuf codkeedii anigoo ku hadlaya afka Oogada soo sida maaha dhammaan aad iyo aad baad mahadsantihiin waqtigoo dheer dartii waxaan leeyahay ugu dambayntii sidaa la sheegay yaynu xisbiga kulmiye ha u diyaargaroodaan codka xisbiga kulmiye ee madaxweynaha waxaad u diyaargaroobaysaan kuma ayaad u diyaargaroobaysaan waxaad u diyaargaroobaysaan kuma madaxweynaha qaranka mudane muuse biixi cabdi ayaad u diyaargaroobaysaan madaxweyne ku-xigeenka kuma ayaad u diyaargaroobaysaan Saajin oo hortiina fadhiya ayaad madaxweyne ku-xigeenka Saajin waxa hortiina fadhiya oo ka mid ah hoggaanka xisbiga kulmiye isagana waa madaxweyne ku-xigeenka codkiisana waad u diyaargaroobaysaan codka saddexaad waxaad u diyaargaroobaysaan xisbiga kulmiye codka saddexaad ayaad u diyaargaroobaysaan xisbiga kulmiye oo uu gudoomiye ka yahay mujaahidkeennii weynaa mudane Maxamed Kaahin Axmed